refugee هاي وحن أمثلات لنا الناس تكلم لها سؤال jaamacadda Admas ayaa munaasabad sagootin iyo xog wareysiya waxay u qabatay ardayda sanadkani 2023 ka qalin jabiyay jaamacadda iyadoo sidoo kalena ardayda u soo bandhigtay fursad waxbarashada heerka labaad ee masterta. daafurkii munaasabadda ayaa waxa madasha hadal ka jeediyay madaxweyne ku-xigeenka qaybta horumarinta bulshada iyo cilmi baarista ee jaamacadda Admas Axmed Xasan Xaaji iyo sidoo kale Mubaarak Cabdullaahi Daljir oo isaguna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee jaamacadda Admas waxaana yiraahdeen nasiib aad u fara badan ayaad leedahay batch number 1 jaamacadda ka baxay waxa ahaa 2009 qodobka waan ku celceliyaa waxaan isbarbar dhigaa fursadaha bariga ay haysteen ardaydaasi 2009 iyo fursadaha idinka hadda idin hor yaala waa laba shay oo aad u kala duwan laba shay ma ka soo qaadanay waxa hadda aad haysataan awoodana idinka wadankiina jooga inaad waxbarashada qaybtii heerkii labaad aad wadan kartaan faa'iidooyin fara badan baa ku jira inaad shaqo hesho shay sahlan maaha markaad meel madaxa la gasho haddana aad og tahay oo aad isleedahay wadanka waxaan rabaa inaan master ama post graduate aan galo waxaad ku qasbanayd in 2009 iyo wixii ka horreeyayba wadanka inaad dibadiisa uga baxdo shaqadii yareed ee aad ku cusbayd ee sanad ama labada ku jirtayna inaad joojiso markaad soo noqotana cid ku damaanad qaadaysa inaad positionkii helayso ma jiro that was a big risk waad ka joogaysa hadda laakiin fursad baad u haysataa ujeeddada aynu caawa xafladan u qabanay inkasta oo horeba loo sheegay waxa aan ku tilmaami karaa in nuxurkeedu uu yahay laba qodob qodobka koobaad waa inaynu xoojinno horumarino isla mar ahaantaana aynu quweyno xidhiidhka ka dhaxeeya bahda reer Admas family si gaara waxaynu rabnaa inaynu xoojinno xiriirka ka dhaxeeya jaamacadda iyo ardayda qalin jabisay ee jaamacadda ka baxday ama Admas alumni inaynu xiriirka xoojinno qodobka labaad ee ujeedadaynu xafladda ka leenahay waxa weeye in jaamacaddu aanay halkaa kaga hadhin ardaygii ay soo saartay ee 3 sano ay ku soo tabcaysay laakiin tacabkii iyo dadaalkii iyo tilmaantii iyo toosintii iyo caawintii ardayda ay kaalintii ay ugu jirtay inay weli sii joogtayso qaar ka mid ah ardayda sanadkan ka baxday jaamacadda ee munaasabadda loo qabtay oo iyaguna madasha hadal ka jeediyay ayaa waxay yiraahdeen waxaan u mahadnaqayaa jaamacadda Admas qabashada xafladan sanadlaha ah ee u qabato ardayda ka qalin bedelasay sanad kasta si ay u soo gootido ardaydaasi mar labaad waxaan si gaar ah jaamacadda Admas ugu amaanan tahay isku xidhka ay isku xidho ardayda iyo suuqa shaqada waxaan ku qaadanay Admas runtii maalmo qurux badan oo aad u fiicnaa hadday aqoon ahayd iyo hadday ahayd madadaalada marka marka koobaad ilaahay baa mahad iska leh malabaadka waa mahadnaqaynaa jaamacadda oo waxbarashada quruxda badan oo siisay Admas University I'm from Eritrea and arday refugee area jaamacadda Admas ayaan ahay and haddaan ku bilaabo xalada hadlad waxaan rabaa inaan jaamacadda aad u mahadnaqo thank you so much for this opportunity and this senior xafladan aad noo qabateen gabagabadii munaasabadana waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka qaybta waxbarashada ee jaamacadda Admas. The title given to me is why do we continue to study master's program or why do we pursue our education into graduate level? It can be master's or PhD, whatsoever it is. So instead of telling you from my own experience and the benefits that I have and my friends have, I took time and tried to prepare a sort of material. But I'm not going to read. I'm going to be focusing only on the core areas. Why do you attend
master's program or PhD program, whatsoever graduate study is. It can be postgraduate diploma program. It doesn't matter. So what are the reasons? That's why I have a title here, 10 good reasons to pursue graduate studies. ومحمد أندر MMTV. معمل ساعدو هالشي إنترنت يكو هذا الآن حد الهين فضلا كشبو أفر كنو شيلن أو ديغان تابر لا تنساعد جراح يديقون سيروون أفرقيس دورو نوع العقتا كدب دورو unlimited دورو لمبر لبا أو ديغان تأفر لا تنساعدو